Asalaamu calaykum. Ku soo dhawaada warbixin cusub. Mareykanka ayaa si lama filaan ah u wajahaya tartan cusub oo dhanka hubka nukliyeerka ah, kaasoo laga yaabo in uu ka khatar badan yahay tartankii dhacay dagaalkii qaboobaa. Sababtoo ah markan waxaa jiri doona 3 quwadood oo waaweyn oo nukliyeer ah. Tani waxay la micno tahay in Washington ay wajihi karto 3 khatar oo nukliyeer ah. Shiinaha ayaa ku sii saqaya in uu la mid noqdo Mareykanka iyo Ruushka. Moscow iyo Beijing waxay muujiyeen calaamado muujinaya in ay yihiin isbahaysi ka soo horjeeda Washington, sida lagu sheegay warbixin uu qoray mareegaha Mareykanka ee Axios. dhinaca kale, madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u muuqda in uu go'aansaday in quwadihii ugu awoodda badnaa xilligii dagaalka qaboobaa oo kala ahaa Mareykanka iyo Ruushka uu hadda kula soo biiro miiska looga arrimiyo dunida. sidoo kale wuxuu aad u xoojiyey xiriirka iskaashi ee uu la leeyahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, taasoo la micno ah in tartanka hubka ee soo socda uu ka xoog badan yahay tartankii nukliyeerka ee xilligii Sofiyeetka. hubka nukliyeerka ee Beijing ayaa weli ah qayb yar oo ka mid ah cabirka Moscow ama Washington, laakiin reactor cusub oo la filayo in Shiinuhu uu sanadkan howlgeliyo ayaa u ogolaan kara Beijing in ay dardar geliso kobaca madaxyadeeda nukliyeerka, sida uu daabacay wargeyska New York Times ee kasoo baxa Mareykanka. Ruushka ayaa Shiinaha kala shaqeynaya hirgelinta reactorkan cusub, waxaana Shiinuhu uu ku andacoonayaa in uusan u adeegsan doonin dhinaca militariga balse uu adeegsanayo dhinaca rayidka. Laakiin Pentagonka Mareykanka ayaa shaki ka qaba, sida uu sheegay wargeyska Mareykanka. sida laga soo xigtay Pentagonka, Shiinaha wuxuu durbaba ku socdaa in uu ku dhawaad 4 jibaaro keydkiisa madaxyada nukliyeerka uuna gaarsiiyo ilaa 1500 oo madax marka la gaaro sanadka 2035. iyadoo tani weli ay kala bar ka yar tahay waxa ay haystaan labada wadan ee Mareykanka iyo Ruushka, ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in Shiinuhu uu dhisayo warshado cusub oo u sameeya hubka nukliyeerka, gantaalada guuxooda ka dheereeya iyo gujisyada nukliyeerka ee aadka u horumarsan. khubarada qaar ayaa ku doodaya in tallaabooyinka uu Shiinaha dhankaas u qaaday ay tahay falcelin ka dhalatay casriyeynta nukliyeerka ee Washington, kaas oo ku kici kara $2 trilyan, kaasoo socon doona ilaa 30 sano ee soo aadan. sidaas darteedna Shiinuhu wuxuu doonayaa in uu hubiyo aadna u horumariyo awoodiisa nukliyeerka si uu uga badbaado weerarka koowaad ee nukliyeerka Mareykanka haddiiba ay dhacdo in labada wadan uu dagaal dhex maro. dhinaca kale, Putin waxa uu bishii February ku dhawaaqay in Ruushka uu joojinayo ka qaybgalka heshiiska cusub ee lagu xadeynayay faafitaanka hubka nukliyeerka, kaasoo ah heshiiskii ugu dambeeyay ee lagu xakameynayo hubkan una dhexeeyay Mareykanka iyo Ruushka. dhinaca kale, Shiinaha ayaa horey u diiday in uu qayb ka noqdo heshiiskan. maamulka Trump ayaa isku dayay in uu Shiinaha ku cadaadiyo wadahadalka xakameynta hubka ee 3 geesoodka ah sanadkii 2020, laakiin waa uu ku guuldareystay. nidaamka xakameynta hubkan waxay u badan tahay in uu fashilmay hadda. dhinaca kale, siyaasadda nukliyeerka ee Mareykanka waxay ku salaysan tahay ka hortag, balse haddii uu dareemo inuusan ka fursan doonin dagaal nukliyeer ah, Mareykanku waa inuu awood u leeyahay in uu burburiyo inta ugu badan ee quwadaha nukliyeerka ee cadowga ka hor inta aan isaga loo adeegsan ama xulafadiisa. waxaana sidaas qaba John Wolfshaw, agaasimihii hore ee golaha amniga qaranka xilligii Barack Obama. qaar ka mid ah khubarada Mareykanka iyo militariga ayaa hadda ku doodaya in ay khasab tahay in Mareykanku u diyaar garoobo dagaal nukliyeer ah oo uu la galo Ruushka iyo Shiinaha. Acton, oo ka mid ah khubarada nukliyeerka Mareykanka, waxa uu ka walacsan yahay in Mareykanku galo tartan nukliyeer 3 geesood ah oo aan la joojin karin. waxaana isagoo arrintaas ka hadlaya uu yiri, ugu yaraan dagaalkii qaboobaa waxaan dhihi karaa Sofiyeetka waa nusnayn, laakiin tartanka hubka ee 3 geesoodka ah Mareykanku ma aqbali doono. wuxuuna ku doodayaa in uu ka sara maro labadooda oo la isku daray. haddaba waxaa isweydiin mudan, suurtagal ma tahay in Washington ay ka sarreyso Shiinaha iyo Ruushka si wada jir ah? balse haddii Shiinuhu uu kordhiyo madaxyadiisa nukliyeerka sanadaha soo aadan sida la filayo, markaas waxaa mustaxiil ah in Mareykanka uu ka saramaro Shiinaha iyo Ruushka oo la isku daray. waxaana sidaas aaminsan Len Rustin, agaasimihii hore ee xakameynta hubka iyo kahortaga ee golaha amniga qaranka xilligii maamulka Obama. haddaba khubarada militariga Mareykanka ayaa Pentagonka ugu baaqay in la maalgeliyo 3 geesoodka nukliyeerka Mareykanka, in la casriyeeyo diyaaradaha dagaalka F-35 lagana dhigo mid awood u leh in ay qaado madaxyada nukliyeerka casriga ah iyo kuwii hore. sidoo kale in la hormariyo lana soo saaro diyaaradaha jiilka 6aad ee fuliya duqeymaha istiraatiijiga ah, gaar ahaan nuuca B-21, iyadoo la hubinayo soo saarista gantaalada balastiga ah ee loo yaqaano Sentinel si loogu bedelo gantaalada duuga ah. si kastaba ha ahaatee, khubaradu waxay ku baaqayaan tilaabooyin dheeri ah oo ay ku jiraan kordhinta madaxyada nukliyeerka si kor loogu qaado fursadaha uu Mareykanka ugu badbaadi karo weerarka koowaad ee cadowga.